السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. ما أنت واحد دنيا إن تاريخ كشكيو waxaan maanta ka saaranahay buurta naasaha blood kadeeda waxaan doonayaa inaan taariikh yar ka sheekeeyo dhowr jeer oo horana sanooyin ka horna waanu baadhnaanu ka sheekeynay maanta taasaan doonayaa inaan ka yar hadlo buurta naasaha blood maaha natural ee waa man made san anagu aaminsanahay oo qarniyadii hore la sameeyay waqtigii nabi Suleymaan alayhi salaam oo king Solomon iyo balqiisa manbasaba dhulkani taariikh fog wuxuu ku leeyahay boqorada balqiisa oo haday tahay sabab wanaag oo hay sabadii wanaagsanayd haday tahay sabacad oo sabadii cadayda oo aanu taariikho hore kaga sheekaynay dhawaana ka soo duubi doono sabacad taariikhda iyadoo fiidiyo ah aw quraaluun baan ku diyaarnay haddaba waa maxay tani imika hadaad eegto buurta naasaha hablood cirifkii buurtan imakaan saarnahay xigta waqooyiga iyo buur iyo naaska xiga koonfurta kan waqooyiga xiga dayaxan hadaba soo qadnaya cadceeda dayaxu wuxuu dayaxu 28 god u fadhiisto marka uu godkaas oo koonaya waa buurta yar baxo ka mara buurta masala oo xagga inaga xigto naaskan xagga ka xigana wuu ka soo noqotaa cadceedu iyo dayaxu intaasay mara 360 maalmood cadceedu marto intaas ka dhaxaysa oo waxa weeye 360 maalmood sanadka kooban weeyaan dayaxna 28 gudbo kala intaasay ku wareegan labadu marka waxa weeyaan hadaba waa maxay xikmadda ku jirta waxa weeyaan imika waxa jira waxa la yiraahdo gate of sky oo ah albaabkii samada laga galiyay albaabkaas nabi aadam alayhi salaam markuu caasi ilaahay ee uu geedkii cunay ee ibliis ku cun ilaahay uu soo dadajiyay isaga xaawa mashriq iyo maqrib baa lagu kala tuuray dabeetan waxa weeyaan markii laga soo dejinayay waxa laga soo dadajiyay albaabada samada waxa weeyaan waa gate of sky hadaba gate of sky waa maxay waa ururka amba aynu origin marka la xadashaan bay la xadacaan oo 5 bilood bisha November bay soo baxaan ilaa iyo March ayaa waxa weeyaan ay jiraan waxa xilliga ariga lagu sii daayo sumalka idah dadka xilligaas ay dhashaan hadaba waxa weeyaan marka lahaasi amba ururka cirka ka muuqda waa gate of sky hadaba kiiba dhulka lagu sameeyay waxa weeyaan buurtan sheeda iyo buurta naas abaarsood buurta la yiraahdo boolidiida buurta malawley iyo masalax iyo buurta naas abaarsood intaas la isku dhaxda waxa weeyaan xidigihii cirka ku yaalo dhulka lagu sameeyay waa the gate of earth waxa dhulka laga galiyay ya taasa marka loo sameeyay intaas hadaba ku tala dadka waxay jireen mulku Suleymaan ba bartan yaala oo waxa weeyaan dadka qaarna waxay jireen Queen Sheba breast waa naasi Queen Sheba ayaa labada naas ay yihiin oo dadka bartaas aari amba ciriqi laga galiyay dhulka ay tahay nimankii Faransiiskaana ay sheegeen archaeological sites ay tahay xaqani hadaba waxa weeye maxay tahay tani imika maalin dhaweyd buuga la yiraahdo King Solomon's mine amba hadaynu eegno waxaan la yiraahdo over waa maxay over waxa weeyaan waa dhulkii nabi Suleymaan macdanta lagu qaadi jiray ayaa bible-ka ku yaala beeta dhulka nabi Suleymaan macdanta lagu qaadi jiray xagu ku yaalay kitaabku wuxuu inoo sheegayaa hadaba oo imika naad keeli kartaan buugagtii laga qoray meel kamida somewhere of badcas ka tirsan ayaa maraakiibta doonyo kaga qaadi jiray nabi Suleymaan alayhi salaam dabeetay waxay geen jireen Qudus iyo xaqii uu deganaa dabeetay markaas la farsamo tumi jiro laga soo qaadi jiro la geen jiray hadaba xaqii ku taala badcas yaa ku yaala waxa ku yaala Sacuudi Carabiya Suudaan Masar Urdun Eritrea Djibouti iyo Somaliland inta dal ee kale dahab malaha Somaliland dahabkii caan ku tahay irshida dahab baa laga helay boorma dahab baa laga helay gabli dahab baa laga helay mayd dahab baa laga helay waxa weeyaan meeshan la yiraahdo xiis dahab baa laga helay buurahan Hargeysa dhaadhiciisa ee dawga dahab baa laga helay buurtan joognamika somewhere u dhow anaga eegan kula hadlayna dahab ka helnay dahabkaas waa maxay waa ka invisible ka waa fin gold imika duudu heshayba sida geologicalkii Shiina Daawud markuu sharaxay waxa weyn imika hala helay waa dahabada reerka ay duuda aan ool laakiin Soomaaliland laga helo waa 24 ma garatay 24 ka xataa waxa loo isticmaalaa 24 waa 100% waa dahab waxa loo isticmaalaa sandwich-ka loo sameeyaa xataa xanuunada kansarka iyo waxyaabihii fersiska waxyaabahaas lagu daweeyaa wixii fers soo dhan wixii bacteria maha وحي HIV فيروس يعني كورونا فيروس
ini cancer viruses kaasoo dhan ayaa imika lagu daweeyaa marka dabeeta waxa weeyaan 100% dahab noqda kaakii laga sameeyay baa bartan yaala hanu cirqidiisa haynaayo la baadho la helay haddaba anagu markaan taariikhda baadhiyo archaeological xaggan ka soo galay afar meelood buu inoo sheegay in laga heli karo waxa kamida daanyarka nooc kamida waxa kamida bahashan la yiraahdo gomburiga waxa kamida maroodiga waxa kamid intaas xawayaan buu sheegayaa kitaabka mobilka in barta laga helay intiiba Soomaaliland baa laga helay buurtani ku nool yihiin daanyarku ilaahay minku ku nool yahay oo dushiisa imika xagga imika harreen oo dhan buu joogaa marka waxa weeyaan buurtani haddaba waxay tahay taariikhdaas oo dhan ba isku tahay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha maayirka magaalada wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska in dhulkan dawladda dhexe la wareegto in wasaaradda ganacsigu la wareegto inaynu ka dhigno horta mid mar waa calaamadii Hargeysa oo Hargeysa calaamadeedu waxa weeyaan waa labada naas ma garatay danna waxa weeyaan wasaaradda dalxiiska ka soo galaysa waa in la wareega waa in la dhameeyaa ciidanka degan iyo xagga waxa weeyaan ciidanka qaranku waa ku ilaaliyo weeyaan meeshan waa in waxa dawladdu la wareegtaa anu qorshan sameeyay Hargeysa kilaab inay dawladdu la soo wareegto Hargeysa kilaab noqdo goob dalxiis oo Soomaaliland dalxiis ka bilaabma xaggan somewhere kamida meesha agteenana inaanu ka samaysano in meelihii dalxiiska imika maaha in buurta 200 loo soo dhawaado taar lagu wareejiyo weeyaan in hoosteeda hoose aynu ka samayno meel dadka reer Soomaaliland reer Hargeysa oo dhan ay isku yimaadaan oo leexadiya maxay gal oo aan buurta u dhaweey saytiska buurta u dhow maaha waa godadka ka hooseeya wadata ay noqoto marka meesha taariikhda cadaynta baan haynaa waxa buuraha Naasa Hablood waxa weeyaan waa mulku Sulaymaan baa yaala dahabka xaqii lagu qaadayay baa yaala kun sheeba bras weeyaan taariikhdaas oo dhan waynu baaraynaa waynu cadaynaynaa khabiirada Soomaaliland la diro anaguna in badan baan baadhino ilaalinay maanta intaas aan idin soo gudbinayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh